kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka falaqaynteena fiidnimo iyo xogaha qarsoon oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan janalka kulanka wararka waxaana caawa ku dul istaagi doonaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dacwad ka dhan ah farmaajo oo la xiriirta doorashada kuraasta taalla magaalada Garbahar ee gobolka Godo u gudbiyay dowladda Mareykanka oo ku hanjabay in tallaabo lama filaan ah uu ka qaadayo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ahmed Madoobe oo golahiisa wasiirada maanta shir ay ka yeesheen arrimaha doorashada magaalada Garbahar ee qodobkani ayaanu ku jeexjeexi doonaa sidoo kalena xoga qarsoon aan idinkaga hayno idinkula wadaagi doonaa inta ka horeysase waxaan idinka dalbanaynaa daawade haddii aad ku cusub tahay channelka kulanka wararka fadlan subscribe sar haddii aad ka heshid wararka iyo warbixinada halkaani aan soo gelinaa like garay sidoo kale aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid iyadoo isgurayo waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xilligii loo qabtay oo 5 maalmood ay ka harsan tahay taas oo ku beegan 15 bishan Maarso ayaa wali wax aanan heshiis rasmi ah laga gaarin sida loo maareynayo 16 kursi ee taalla magaalada Garbahar ee xarunta gobolka Godo dhawaana Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu fuliyay qodob ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii 25 bishii hore ay aalada Zoom-ka ku yeesheen xubnaha golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxda dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble qodobkaas oo ahaa in guddi isugu jira xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka uu Ra'iisul Wasaaruhu magacaabo isaga oo la tashanaya madaxweynaha maamulka Jubbaland guddigaas oo si xaqiiqo raadin u tagaya magaalada Garbahar kadib markii ay badatay cabashada la xiriirta in aan la isku haleyn karin magaaladaasi oo ka timid dhinaca maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweyne Ahmed Madoobe guddigaasi ayaa waxa ka hor yimid inay tagaan Garbahar xubnaha gacanta ku haya maamulka gobolka Godo iyo kan Garbahar ee sida tooska u hoostaga taliska NISA iyo filla Soomaaliya arrintaasi ayaa Mareykanka dhowr jeer oo hore waxa uu digniin ka soo saaray in tallaabo muuqata ay ka qaadi doonaan cid kasta oo loo arko inay carqalad ku tahay geedi socodka nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo dhameystirka doorashooyinka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo sida dacwad ka dhan ah hoggaanka taliska nabad sugidda iyo filla Soomaaliya ayaa waxa uu maanta tagay xerada Xalane halkaas uu ku sugan yahay safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa marka hore warbixin ka siiyay safiirka dowladda Mareykanka halka doorashada Soomaaliya ay marayso caqabadaha laga gudbay iyo kuwa wali harsan Rooble ayaa sheegay in 80% ay soo gabagaboomeen deegaan doorashooyinka maamulada dalka marka laga reebo magaalada Garbahar oo u muuqata in caqabad xoog leh wali ay ka jirto taas oo salka ku haysa arrimo siyaasadeed Rooble ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran heshiiskii dhawaan ay gaareen ay ku soo saareen in guddi xaqiiqo raadin ah oo loogu laab xaarayo madaxweyne Ahmed Madoobe in loo magacaabay magaalada Garbahar inay tagaan si halkaas ay warbixin uga soo gudbiyaan hase ahaatee maamulka gobolka Godo ee ka marqaata taliska NISA iyo filla Soomaaliya ay arrintaasi ka hor imaadeen danjira Larry Andrew ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid laga xumaado isaga oo wacad ku maray in tallaabo degdeg ah ay Mareykanka ka qaadi doonaan cid kasta oo loo arko inay soo istaag ku sameysay horusocodka doorashada Soomaaliya Rooble ayaa Larry waxa uu sheegay in doorashada Soomaaliya ay ka go'an tahay in 15 bishan lagu soo gabagabeeyo laakiin jiitan iyo caqabad xoog leh ay ka jirto dhinaca filla Soomaaliya oo isticmaalaysa saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo ku sugan magaalada Garbahar ee gobolka Godo waxaana ay gabi ahaanba uu Rooble sheegay inay diidan yihiin in doorashada ay ka socoto magaalada Garbahar dhinaca kale Rooble ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid dhaawici karta doorashada Soomaaliya loona baahan yahay in Mareykanka uu ka dhabeeyo hanjabaadihii dhowr jeer oo hore uu soo jeediyay oo ahayd inuu tallaabooyin ka qaadayo dadka carqaladeynaya doorashada Rooble ayaa si toos ah farta ugu fiiqay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo xubin sare oo ka tirsan taliska NISA xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo madax ka ah howlgalka gobolka Godo ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Rooble ayaa sheegay in xubnahaasi ay caqabad ku yihiin doorashada oo aanay ka maamuli karin kuraasta taalla magaalada Garbahar ee gobolka Godo Mareykanka ayaa sheegay in tallaabo muuqata si degdeg ah uu uga qaadayo saddexdaasi mas'uul uga horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa maanta shir ku yeeshay golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulanka waxa gudoominaya Axmed Madoobe waxaana ugu horeyn ay warbixin la xiriirta amniga ka dhigeysteen saraakiisha ciidamada iyo howlwadeenada kale ee wasaaradda amniga waxa sidoo kale kulanka la isula la fakuray sida Jubbaland ay u
wajahayso doorashada kuraasta golaha shacabka ee qaar ku harsan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale 16 kursi ee caqabada noqday ee taala magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo. golaha wadatashiga qaran ayaa la qorsheenayay in dhawaan shir ay ku yeeshaan aalada Zoom-ka kuwaas oo go'aan kama dambaysa ka soo saari doona kuraasta mixnada noqday ee 16 ah ee taala magaalada Garbaharre. waxaana xaaladdu midi ay noqon doontaa in kuraastaasi doorashadooda dib loo dhigo ama laga wareejiyo magaalada Garbaharre sida xogaha qaar ay sheegayaan. waxaase isweydiin mudan sida ay uga suura gali karto dhinaca filla Soomaaliya oo markii hore ka dhigatay jidgooyo ay doorashada u dhiganayso si waqtiga muddada 2 sano ah ee uu caashaqay madaxweyne Farmaajo uu ugu dhameysto. guud ahaan daawada falanqaynteena iyo xogaha qarsoon oo alaaba xiliyadan oo kala aad kala socotaan channelkeena kulanka wararka caawintaas ayaan ku soo koobaya. daawada haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan ugu soo biro subscribe star. haddii aad tahay mid hore noola joogay waxaan ka dalbanaynaa inaad sii share gareyso warbixinadeena iyo wararkeena haddii ku qanciyaan aad la gareyso wixii aragtiyana comment noogu reeb. nabadgelyo.